warwaad islaamay asxaabta soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan waxaad leeyahay waqtiga joogiga adigu wacnaado waayahay maamulku sheega Kirshabeelle horta run ahaantii xawaadla wuxuu ku noqday magaca Kirshabeelle markii la maqlaba xawaadla wuxuu ku noqday nabar aan buqeen nabar aan dilaaceen oo aan bogsanayn oo aan daawo lahayn ayuu horta xawaadla ku noqday waxa la iska rabaa nabarkaas nabarkaas yaa daawadiisa haayo Kirshabeelle daawadeedii haayo horta fadlan haddii aad Kirshabeelle daawadeeda aad haysid qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag Kirshabeelle dawo inaysan lahayn aniga aaminsanahaba runtii waxa weeye horta maamulkan xasan shiir maalintuu dhisayay oo qorqabadka xawaal oo yacni u qorqabanayo oo dalaq uu siinayo kuwa caada qaatayaale oo xawaadlaha halkaas ay fadhiyeen xasan horta xawaalle waa ka inkaarsaday inkaarkiisina ilaa hadda waa hayaa waa kan saas u heehaabayo oo laba xarigba isku xiri la asay u taalaa taas marka runtii horta waxa weeye maamulkan Kirshabeelle la yiraahdo anigu waxaan isleeyahay maamulkani maamul xawaalle ay kala dhamaanayaan ma aha maamul owlos aheeno maamulku sheeg ahaaye balse xawaalle iyo Kirshabeelle ma kala dhamaan doonaan ilaa hal qodob la helo halkaas qodob haddii la waayane sidaana la iskaga daba raaracayaa ilaa buunka qiyaamaha yeero ama ilaa iyo maamul goboleedyo ay jiraan xawaadle iyo Kirshabeelle sidaana iskaga daba laalaadayaan oo maalin kasta isku haysanayaan waayahay muxuu yahay marka qodobka ama pointiga looga hari karo Kirshabeelle waxa weeye haddii xawaadle uu sameeyo sida qaatumo state ee sameeyeen oo kuwii caada qaatayaasha ahay horgalada ahay yani taabacsanay Somaliland sidii ula dhaqmeen haddii xawaadle ula dhaqmo kuwa xawaadle ee caada qaatayaasha ah ee Kirshabeelle ka daba luflufto haddii uu sida qaatumo oo kaleentay ula dhaqmaan Kirshabeelle banaanka laga istaagaya Kirshabeelle banaanka laga maraya haddii taa la waayo oo xawaadle iska qaban waayo kuwaan xawaadle Kirshabeelle horkacayo ee wada qariban ee wada waalan haddii xawaadle oo kuwa iska qaban waayo oo sida qaatumo state ama dhulbahanta oo yeela haddii ay yeeli waayaan weligeed waa iska daba laalaadayaan Kirshabeelle waxay xawaadle ku noqonaysaa nabar aan daawo lahayn ayay ku noqonaysaa xawaadle haddaba markaad wax indheeyso runtii horta maamulkan Kirshabeelle la yiraahdo kolleytaba waa un maamul shanta maamul goboleed ayuu ka mid yahay xawaadlana wuxuu doonayaa maamulkaas inuu ka dhamaado oo banaanka ka istaago wadadii maamulkaas looga dhamaan lahayna xawaadle xaqiiqatan inuusan hayn xawaadle indhacadays ay ku jiraan wadadii Kirshabeelle looga dhamaan lahay oo Kirshabeelle banaanka looga istaagi lahay xawaadle runtii ma hayo markaa runta sheegna weeye balse maxaa xawaadle la gudboon waaye xawaadle waxaa la gudboon inuu horta kuwa xawaadle ee horgalada ah ee caada qaatayaasha ah ee magaca Kirshabeelle wato kuwa waa inuu ka taqalusiyaa waa haddii ay rabaan xawaadle in ay banaanka ka istaagaan Kirshabeelle haddii kaleento la kala dhamaan maayo waa ina hebel iyo waa juf hebel iyo inta lagu hayo kuwa xawaadle ee Kirshabeelle yani horboodayee wado ma laga dhamaanayo Kirshabeelle ma laga dhamaanayo waa midda aniga aan aaminsanahay adiga koleeto fikir kaleento waa laga yaabaa inaan fikir ka duwan aad aaminsan tahay waa macquul inayna isku fikir ahayna waa iska suuragal laakiin aniga waxaan aaminsanahay inta kuwaasi ay joogaan oo xawaadle kuwaasi dhowranayo Kirshabeelle ma laga dhamaanayo taa meel ha layga qora aniga waxa weeye marka xawaadle maamulka Kirshabeelle la leeyahay maamuladaas ayuu ka mid yahay marka maanta dalka jira ee shanta gobol maamul goboleed la yiraahdo ayuu ka mid yahay maamul waxa waaye xagga dawladda ka diiwaan gashan laakiin wax qabadkiisa liito oo maamul fashilmay ayuu noqday maamulkaasi laakiin xagga caalamka iyo xagga yacni dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha waa ka diiwaan gashan yahay xawaadlana wuxuu ku gowracan yahay inuu maamulkaasi ka mid yahay ayaa ay sida Hirshabeelle yani uga diiwaan gashan tahay ayuu xawaadlan uga diiwaan gashan yahay Kirshabeelle waa markii maasha aan
nahida iyo ya xogaa baasha xag iska dhigno waxyaalaha qiyaaliga ee annaga isku qancin marka xag iska dhigno weeye oo runta u kacno haddaba marka maamulka maamul dhamaanaya ma aha maamul daaqada ka baxayana ma aha laakiin xawaadla wuxuu maamulkaasi banaanka ugu istaagi karaa waa inuu horta in alaale inta xawaadla ay ku jirto Hirshabeelle oo iska qabto ama ka soo reebto oo ka soo goosto ama ayagaasba oo iska qabto meel banaan cad yani iska mariya haddii kaleeto waxa waaye baasha waxay noqonaysaa alfu leyl walayl ayay noqonaysaa ha sheeko waxay noqonaysaa iska tixana ah oo iska jiitanto Hiiraan State Hirshabeelle Hiiraan State Hirshabeelle waxay noqonaysaa sheeko tixana ay noqonaysaa ha oo iska taagan oo socoto dhamaanin ayay noqonaysaa runtii marka xasan shiikhne kuleyba asaab horta dhibaatada asaa keenay asaana maanta bixi karo muxuu ku bixi karaa muxuu ku baabi'in karaa xasan waa u jeediya xawaadle inaan lagu kareen Hirshabeelle in yaroo afar caadaqaatiyaala xaggayga dhig majority xawaadle inaysan Hirshabeelle rabin oo aysan ku qanacsaneen xasan shiikh waa og yahay qof kastoo mas-uulana waa og yahay xasan shiikh marka haddii marka magacaan Hirshabeelle la yidhaahdo uu bedelo xitaa lacala fiiriya oo magac kaleento oo keeno oo sidii yani labada gobol iskugu lifaaqan yihiin oo laakiin magacaan Hirshabeelle la tuuro oo magac kale la keeno waa iska suuragal oo la yiraahdo xogaa waa la hagaajinayaa si cadaalad wax loo qaybsanayaa caasimadda iyo madaxweynaha waa la qaybinayaa saan waaye kambulow waaye hadduu filim kaleento la yimaado lacala waa laga yaabaa xawaadle inuu taa ku qanco oo yiraahdo Hirshabeelle horta daaqadda ka baxda ha bisbax salaamo laakiin labadii gobol ee Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan sidii isku saaran yihiin lama kala qaadayo laakiin magaca la bedelayaa maamulka magacaan Hirshabeelle ayaa la bedelayaa waa lacala waa sheekada markaas subax aan ka hadlayo aniga taa adeed timaado waa macquul xasan shiikh oo sameeyo Hirshabeellena off lama dhihi karo oo waa maamul jiro dhanka dowladda ka diiwaan gashan oo lama dhihi karo xawaadla diidee maamulkan hala tuuro lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa in la yiraahdo maamulkan hal la bedelo maamulka magaciisa hal la bedelo magac kale ha lagu bedelo maamulkana yani si kaleenta ha loo dhiso oo yani awood qaybsiga iyo wax walba hala qanciyo dadka xoogaa hadda taagan sida xawaadla oo kaleento oo diidan bal hala qanciyo ha laisku soo dhaweeyo in la yiraahdo taas ayadana waa macquul waayahay haddaba marka xawaadle sidiisaba ayaga waxay rabaan oo ay jecel yihiin Hiiraan in ay u noqoto laba maamul laba gobol ha laba gobol inay u noqoto xaqiiqatan dastuurkana ma diidayo maanta Hiiraan haddii la fiiriyo sabab loogu diidaa inay laba gobol Hiiraan noqoto horta maba jirtaba Hiiraan 8 gobol ee Soomaaliya ayay ka taagan tahay 7 gobol weeye waxaan yani 17ka farac noqday 17ka gobol noqday waa 7 gobol ayay ka mid noqdeen 10 gobol ayaa ka soo dhex baxday halkaasi Hiiraan halkii taagan tahay qof maanta diidi kara iyo dastuur diidi kara iyo sharci diidi kara Hiiraan inay noqoto laba gobol ya horta ma jiro laakiin siyaasiyiintii gobolkaasi ayaa waxaa moodaa in la kala xogaa la kala jeedanayaad moodaa qabaa'ilada gobolkaas degan iyo siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeedo baa waxaa moodaa xogaa inaysan isku aragti ahayn isku fikirna aysan ahayn haddii marka baasha oo xawaadla keliya uu taagan yahay Hiiraan waa laba gobol ya qabaa'ilada kaleentana aysan ku raacsaneen xoogaa taasna culays ayay keenaysaa cid walbana way dareemaysaa marka qabiiladii kaleento ayaa laga soo marayaa xawaadle dhanka qabiilada kaleenta ayaa laga soo marayaa qabiilada kaleenta waxaa leeyahay Hirshabeelle aan ku qanacsanahay dhaha waa siyaasadda real jirto xaqiiqda jirto weeye waxaan ka hadlayaa aniga ma aha waxaan iska dhoobayo ama waxaan iska sheegaya ma aha qabaa'ilka gobolka degan baa intii lala soo wareegaa waxaa la leeyahay xawaadle wuxuu u socdaa meel balaayo oo af libaax oo yani idinku ridi rabaaye ha ka yeelina adinka waxaa taageertaan oo aad tiraadaan maamulkan Hirshabeelle ayaan ku qanacsanahay Hiiraan in laba gobol noqoto ma doonayno intaas oo istaagaa la leeyahay siyaasiyiintooda intaasaa lagu akhrinayaa taasna waxay keenaysaa marka caqabad waxay ku noqonaysaa inta u ololeynayso Hiiraan inay yani laba gobol noqoto ayay taas waxay ku noqonaysaa qodax wadada loo daadshay ama qodxa wadada loo daadshay ayay ku noqonaysaa marka xawaadle marka waxaa la gudboon in qabaa'ilka gobolka deganna uu soo dhaweysto maadaama laga fogeeyay siyaasad xumo xawaadle xaggiisa ka timid ahaa si kaleenta ahaa
qabaa'ilkii gobolka waxaa moodaa xawaadle in laga fogeeyaa moodaa oo meel dheer ama raka dheer laga saaraad moodaa xawaadle marka waxaa marka la gudboon inuu qabaa'ilkaas soo jiito qabaa'ilka gobolka la degan weeye inuu intuu soo jiito soo dhaweysto yiraahdo war aan ka tashanno aayaheenna iyo danteenna aan ka tashanno okay taa marka hadday timaado oo gobolka qabaa'ilka deganna ay soo istaagaan ayagana hiiraan waa laba gobol markaasi hiiraan bannaankaas ayay ku dhacaysaa laakiin intay hadda sidai hadda aan wax u jeedno sidai hadda aragno ama ay wax ku socdaan xaqiiqatan waa kaaf iyo kala dheeri weeye marka waxaan leeyahay xawaadlow waxaa lagaaga baahan yahay siyaasad weliba siyaasad midaysan midnimo ayaa meel lagu gaari karaa adinkoo midaysan oo xawaadlaa iyo qabaa'ilka gobolkaas degan oo idinla midaysan haddii intaas aad heshaan xawaadlow waa ka guulgaaraysaan Hirshabeelle iyo in allaale inta idinka soo horjeeda ee gobolkaas u diidan in uu laba gobol noqdo waad ka guulaysanaysaan runtii taasna cid ugu beerin karta ma laha haddii arrinkaasi loo dhaqaaqo oo dhankaa la aado inay wax walba ay hagaagayaan waa wax cad oo iska muuqda weeye laakiin xawaadle ayaa waxaa moodaa siyaasaddiisaba inaysan ahayn siyaasad fadhiso waa siyaasad sabaynayso oo maanta meel yacni loo raaco aanan lahayn ayagiyaa qayb waxay taagan yihiin Hirshabeelle oo taageersan yihiin qaybna waa qoladan yacni doonayso inay hoggooda Hirshabeelle marka waxaasoo dhan marka waxaa la rabaa biyo meel godan ayay isugu yimaadaane in meel yacni la isugu wada yimaado xawaadloo dhan oo midaysan qabaa'ilka gobolka degan oo midaysan oo xagga siyaasadda laga wada midaysan yahay iyo xagga aragtida iyo fikirka laga wada midaysan yahay haddii taas la helo buudkaa lagula tumanayaa Hirshabeelle in allaale inta ka soo horjeedo gobolkan hiiraan inuu laba gobol noqdo inta diidan buudka ayaa lagula tumanayaa dhammaan akhyaari waad istiraamayaa muuqaalka share iyo like noogu qabta wixii aragtidaada oo yacni aad nagu soo biirin kartidna qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu